cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteelko ayaa shaaciyey inuu ka tanaasulay tartankii ugu jiray maayirnimada caasimadda Somaliland ee Hargeysa. cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteelko ayaa shaaciyey inuu xilkaasi uga tanaasulay cabdikariin axmed mooge oo ay ku wada tartamayeen. dhanka kale cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteelko ayaa xusay in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu u soo jeediyey inuu xilkaasi ka tanaasulo walaalkii cabdikariin axmed mooge. tala soo jeedintii madaxweynaha ka bacdi waxaan ku qancay inaan ka noqdo hankaygii ahaa inaan u tartamo maayirka caasimadda. taasoon leeyahay xildhibaanadana aad baa u mahadsantihiin. waxaa kaloo aan u mahad celinayaa madaxweynahayga tallaabada ay soo jeediyey. uga hambaliyeynayaa saaxiibkay cabdikariin axmed mooge oo ah ninka aan uga tanaasulay inuu noqdo maayirka caasimadda. runtii waan ogahay taageerayaasheeda way ku adag tahay, mudday soo xarbiyeen, laakiinse kursigu laba uma qaybsamo. kursigu qofunbaa ku fadhiista. haddii aan laysu hanayna waxay noqotaa foolxumo. taa si ayna u dhicin waxa aan ku qanacsanahay inaan walaalkay cabdikariin axmed mooge oo muddo 30 sano ka badan aanu saaxiib ahayn aan uga tanaasulo. cabdikariin colaad inagama dhaxayn, waxa weeye tartanka kursiga anna aan ku fadhiyey isna uu doonayay inuu soo fuulo uunbuu ahaa tartanka naga dhaxeeyey. cabdikariin axmed mooge waa shakhsiyad aad u wanaagsan, aanan aaminsanahay inuu hanan karayo kursigaasi. waxaan leeyahay cabdikariin axmed mooge wuxuu wax ku noqonayaa filashada badan eed ka filaysaan iyo ballanqaadku sameeyey shacbigu hadduu cashuurta bixiyo. waxaan leeyahay taageerayaashaydii inay saa ku qancaan. saaxiibada xildhibaanadana waxaan leeyahay inaynu 17 bisha cabdikariin u wada cumaamadno, u caleema saarno inuu maayirka noqdo magaalada. anugu ka tegi maayo golahayga, waan golahaygaan dhex fadhiyayaa, odaygii magaalada iyo maayirkoogii oga noqonayaa. sidaasaanan insha allahu tacaala ku dhex joogay. xisbigayga kulmiye dadka qaar baa propaganda sameynaya oo ka tegaya. xisbigayga kama tegayo. xisbigaygu waa kaan ku bilaabay, waa kaan ku shaqayn doono, waa kaan mustaqbalkana ka rajaynaya inaan shaqo ka badan aan xisbigaa ka qabto.